السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له الصوماليات سيدي إيتين في عنتين الحمد لله أنا جانا ما في عنها إلى بام هذا إسكال مركري أنا ذا فيديو اسكو كان سؤالي إلى بام هذا إسكال أنا every week هالفيديو إذا كصوته راحت إلى يرى ما شاء الله تبارك الله فيديو جم وحد بس عذا إن وحنكو إكين بارت 2 قصدي إهت مسيركي قبل ولاش نهت oo mataqaanaa qisadeeda ahayd gabar la joogtay oo kaasinkeeda ahaa mataqaanaa intaasoo sano la joogtay oo ilmaha lasoo korisay oo markii dibadana dhahday insha allah waxaan rabaa inaan nolol kala samaysto iyo ninkeedii oo markay gabadhaas guurtay ka bacdi ninkii isbedelay baa sheekada nooga ekayd ninkii gabadhii ayoo raacday gabadhii ayadoon raacday ninkii oo ku wareersaneed adiga muddo qaadanaysa 2 sano ku wareertay baa hadda baarta 3 geedi ayaa hadda wada insha Allah waxa inuu ugu dambeysay ayada oo raacday taxi ka daba qaadatay gaarigiisii isaga oo dhahay safar ayaan aadaya waxaan ahayd inuu aado eelaboorka xaqiisa muuna aadan eelaboorka xaqiisa ee magaalada xageeda ayuu aaday ayadana taxi ayay qaadatay أنا شريرنا وحرتي ودبا كعدي إن شاء الله قصد مركز حين وأكيد أيضا أو دبا كعدي أو بلدينكي وقالك دبا كشيء أو حن كلية هاي الفترة كي كدبا قاعدتي نبركي وكدجاي في رسي نبركي قرقراعدي نبركي لقى فري البابك مركو حين وأكيد ماشي البابك لقى فري قفك كفري نو أكيد يا قصدا وقصة عادي وحنون بدن و super painful marka waxaa dhacday albaabkii uu meeshuu dalaq abuuheelo yiraaday ay aragtay ee nabarka fiiranaysay ee nabarkii gow baayaxis wadna xanuun waaye وأنا حنون أدر الواحد أذكر راسي تبان فانت sometimes وأنا حنونك واحد كرة سنة صار الواحد هذا سكيني فانت واحد على جودي الباب كأني بحال جبر إكسي سفك أو بحال يروحون جرو أو ذي ويجو سنت ساعة ويست يا وذي الله بعض السنة ku wareersaneed 2 cunug alooga soo tuuray 2 sanoba iswaalayay oo ku wareertay gabadhii ninka maxaa helay waa 2 cunug laga soo tuuray ma fahanti meesha la isla wadankii la isla degan yihiin isla gobolkii la ay degan yihiin laakiin way kala fogyiin meelaha ay kala degan yihiin ma fahmin ninkan wuxuu leeyahay safaraan aada de safar ma ba aadaay magaaladiisa uu dhinac ka galaalay dhag iyadana war ma ka haysaba أدو دبنا سفر كي كل جويسي أسوأ عركاس مرة وحسوب في أدوار كهينين أو ساقو كعاية كركرة أسقى دمبا بجرو سوق لا يبتري وحاد هذا مركا الباب كبي كفرتي الباب كيا كفراي متقانين هدي الباب كقف كفراي وعنق يرنا السنت كوهيسته qofkaas ku yahay waa idin soo sheegay gabar kaasankeeda ahayd oo muddo la joogtay oo ilmaha la soo korisay oo ayada ay ka soo kacaysay meel tuule oo ayada la nooleed oo markii dambana tiri aday for some times tiri waxaan rabaa nolol kale inaan magaalada ku noqdaan rabaa oo nolol iska sameeysto nolosha loo sameeyay xaajigeedu waa ma fahantiin albaabku waxa ka furay gabadhii kaasankeeda ahayd oo cunug yar haysata oo sinta ku haysata cunugana ninkeeda ayaa dhalay ayaa albaabka ka furtay maamadii waxaa dhacday inay ninkii wajigiisi ee gabadhii walaasheed ahayd oo isa fiican intay ugu soo shoob garaysay u dirtay tuuladii tuulo la aadima bay jirtaba hore leeb guriga loogu sii xareystay warasa loo dhigtay faant iyadu war ma ka hayso war ee ka hayso ma ba jirto markay u imaanayso leedahay
waxaan rabaa nolol inaan samaysto oo reedi waaba ninka naagtan way bis ogaayeen guriga bay soo hagaajisteen adduunya bay soo hagaajisteen waxay isku soo daba riteen ayada marka firinkaa loo jiray ma fahanteen marka waxaa dhacday gabadhii in ay taagnada bartakaasi ugu dhacday oo meel ay joogtay iyo meel kala jir ay weysay ee kusoo toostay ayadoo kooma kasoo baxday toos ay waxay u gashay kooma naxdinta hadee waa qasidan qasab oo meel laga soo qaado waa qasar run ah oo real ah oo dhacday oo is happen oo Soomaali ku dhacday waa very true qasad waa waxaa dhacday gabadhii marka naxdintii ee naxday gabadhii ay suguutisay ee tirtuulada u dirtay qosinta bahal cunug ku haysatay cunug ninkeeda uu kala ninkeeda uu garab taagan yahay markay dhag ku siisay gabadhii ilaa hadda lagu leeyahay way jirintaa lagu leeyahay gabar jirnaa lagu leeyahay ilaa hadda jiradii ee ka qaadaa lagu leeyahay maalintaasi up to now la taagan saacadaani gabadha way noosha jiradina way haysaa ilaa hadda waxaa dhacday marka in ay qadii marka meesha laga qaado kooma ay ku jirto cabaar ay kooma ku jirto la yiri oo naxdinta moogta aad ay u xun tahay waa naxdintaas waa inay haadata ku qadad badan oo u dhinteenba naxdinahaas oo kala waa very halis waa u dhiman kartaa nafta way ka haadi kartaa anytime waxaa dhacday gabadhii inay iswalwaashay koomay markay ka soo baxday maxaa isku walwaalaya laabaa waxaa isku walwaalaysaa ninka mar walba ka doorsaday saddexdaad ma dhibina la saddexdaad iga qabsaa la yiri ma ku arki karaa barto saddexdaad iga qabsa laba cunugay marka uu dhashay laba wiilay ma laba cunugay u haysto labada cunug way weeyeen muddo 20 sano is qabeen dadkan marka labadii cunug waxaa la dhahay laba cunug iskoolka aad ugu fiicnaa ahayn iskooladii wixii yani roob gareeyeen yani ilmihii baa waxaa ka jabtaa la yiri niyadda ay ka jabtay ilmihii baa waxaa gaaray furiinkii markuu dhacay labadii cunug baa waxaa gaartay yani wax aad u xun bay gaartay marka dadkii marka waxay ugu taliyeen la yiri ninkan guriga kula degnaado say ilmahan yani ee qadka ugu dhicin oo ilmihii mataqaana future-kooda ugu halaabin ha arkaana in aad wada joogtiin laba gurni kala saaxda sidaas ma ugu talinayda comment kale igu soo qoro gabdho intii dhageysatay yani qasideeda la socotay oo dhageystay waa qasar run oo dhacday marka ummadii baa kula taliyeen baa la yiri dadkii adiga la dhasheen maadaama la arkay ilmihii in ay labadii cunug ee mataqaana darka ka sii baxayaan oo waxaan ku leeyahay future-kooda ay ku ciyaaraan ilmo yaro qurux badan oo iskooladooda dhigto waxoodii ahaayeen oo mataqaana qalbigoodii damage gaari baa dadka waxay kula taliyeen la yiri ninkan soo celiha soo noqdo gurigana ha ku soo noqdo gurigana isla waa isfuran waa dadka isma qabaan ninkan Abu Helo markuu gabadha saa isku waasho wuxuu dhahay madaxu saddexdeeda waa ku kortariye wuxuu dhahay aniga wax weyn ma beel ah u dhahay saddexdeeda inaan sii islaantan avanti waan ka dal doorsaday dusha iga xagan ma qasheen mar hadduu ninka ka dal doorsado walle inuu ku dheheenin aan ku dhahay tan waqti isla soo qaadanay tanaan gaajo isla soo marnay tanaan history aniga ayada isku heena tana aniga iyadoo yar aan jeclaan jirnay kuma dhaxaaya nin Soomaali waa saacada iyo any minute-ka uu markaas wax uu haysta any minute-kaas hadduu farxad yar oo midaas kale ka helaya oo farxadiisa yani farxad uu asaga intuu rabay ee midaas ay taagan hadda oo gadaalka imaata uu ka helaya adiga waxaadii hore aad soo waday oo soo sameynaysa 20 sano aad soo bilgareynaysay waxay noqonaysaa wax ka kaca asaga xagiisa wax qiimo ugu fadhinaaya male
laakiin marka anagu gabdhaha nahay gabdhaha nimanka ay history iskaga hayaan qiimo ay ugu fadhiyaan u fiirsada gabdhaha lagama yaabo nimankaas history ay isku hayaan labadooda oo taariikh isla soo mareen inay ku ciyaaraan lagama yaabo laakiin ninka Soomaaliga waxa easy ninka Soomaaliga in uu waxa 20 sano isla soo marteen dib iyo raaxa isla soo martay any minute inuu ku iloobo oo midaas oo any minute ka oo raaxada iyo ka helaya iyo qosolka yar oo ka helaya ay tiisa tahay oo adiga aad macna ku fadhineenin gabar kasta niyada ku qabsataas yaani adiga in aad macna ugu fadhineenin any minute ka markaas oo taas haysta farxadda oo any minute ka oo ku jiro ee aqligooda bas tahay aqligooda ma si dhaafsana qofkan history ba isku haysiin waxba isla soo marteen dhibaato ba isla soo marteen gaajo ba isla soo marteen jacayl isla soo marteen waxa ma qoraan in minute ka ee isla taagan oo taas moment ka la taagan ee ayaga ka ciyaaraan moment ka uu taagan haduu farxad yar ku jiro taas oo farxadda ka helay ayaa number 1 waa adiga waxa tahay lag atraashka amal ayuu ka dhigayaa laakiin gabadha Soomaaliga lagama yaabo ninka ee history isla soo maray in ay trash ka dhigto lagama yaabo hal way dhacdaa laakiin ma u badna most of them gabdhaha ma sameeyaan gabdhaha waxa waaye waa gabdho qadariye historyga ee ninka isla soo mareen waan gabdho aad iyo aad u qadariye oo xushmeeyo oo respect gareewa laakiin nimanka Soomaaliga lagama yaabo gabadha 20 sano soo qoy wuxuu dhahay iswalwaasha war hay dhaafto raaytan awal bay wuxuu dhahay wajiga iga dhibaysay intaan u iimaanayay marka dadkii baa waxay kula taliyeen maadaama ilmihii qalbiga ka dhiceen mid kale gabadhan jiradii ku soo booday ilaa ay hadda way haysaa jiradaas ilaa ay hadda lagu leeyahay ilaa ay hadda jirada ilaa hadda way haysaa ilaahay caafi gabadhan walaasheena qalbiga waa muraayad waaye qalbiga waa muraayad marka waxa lagu leeyahay qofkan bini aadamka wax walba ka filo ha isiinin qofkan bini aadamka wax walba ka filanaysa marka naftaada ha wada dhiibin yaani ogow marka akula naftaada ha wada dhiibin kuma dhahay yaani jacaylka haafsi haafna kareeba kuma dhahay taa ka soo horjeeda aniga laakiin waxaan ka wadaa every minute iyo every time waxaad ogaataa ninkan anytime uu ka tagi kara ninkan anytime inuu isbedeli kara yaani wax halkaas kugu qoran oo qalbadaada ku qoran oo ku saaxatid oo ku soo toosatid inay ku ahaato waxa ka yaraanaya dhaawaca hada abaayo ku dhaco kala kuma dhacaya waayo waad ogeed ninkan halkaas ku qortay ninkan inuu ka tagi karo inuu anytime qalbadiisa isbedeli karo waa waxaad ogeed wahay marka yaani nabar waxa la yiri nabar isla ogyahay naxdin ma leh marka abaayaha sidii uu naxday ee qalbada ugu jabtay muraayada qac u tiri adi kuma dhahays because you prepare yourself kaada waa isku sii diyaarisay yaani waa isku sii diyaarisay markaan kulay ma aha inaad gafuur u taagayso ma aha inaad dhaysan ninka waa iga tigid ma aha waxaas inaad isku shidaysid ma aha laakiin waxaan ka wadaa minaad ogaatid axad kaani anytime inuu isbedeli karo oo bili aadam oo bashar inuu yahay basharkana waxaan isbedelin waa ilaahay waa qofka bili aadamka uu isbedeli karaa qofka bili aadamka anytime uu isbedeli karaa ku nici karaa jacaylkan badan oo ku haaya waxa isku bedeli karaa nacayb basha ka hadlaan fahantii gabdho وفانتين عملاء مركا إن أهد السيسين أبايا مركا وحا جبت مرايد دي باوحي تريقا بداس ولاشينا قع مرايدنا حال مرحا دي قع كتري هذا بس وسيكسو نقطة ويأدكتها سيكسو نقطة ويأدكتها دادكي باوحي دهين ويلا هلين waxay dhahan ilmahan sidan ilmihina markii muraayada jabta ayagana sida hooyada may noqdaan laakiin ayagana wax walba waxay ka noqdeen low adiga wixii wax barashadii bay igan waxay ka noqdeen low dadkii ba waxay ku talayeen dadkii in ay
isla wada joogaan oo ninkan ay soo celiso uu guriga ku joogo oo waana furay oo ninka ma qabo uu qol ka seexdo siday ilmaha u arkaan oo qalbadooda u jiraan okay bay tiri because of ilmaheedii ninka waxaa lagu leeyahay sometimes guriga u imaanaya qolkaasuu iska seexanaya darti ilmihii dartoodii laakiin cid waxba kuma darsado abaaheeleydii kaasan ee 2 cunug ayada iyaa lala degan cirka iyo dhulka la geynooya adigana waxaa laga dhigay trashka iyo ada isku midatiin ya trashkan ku dhahay trashka iyo adiga isku midatiin ku dhahay kaaba isoo soo marteen ma jirtaa lagu leeyahay gabadhii walaashay ahaydna ilaa hadda waxaa lagu leeyahay jiradii weli kama lug bixinaa lugtay jiidaysaa lagu leeyahay waa dhabankeeda hoos buu u lalaadaa lagu leeyahay waxwal yani muraayadii baa jabtay oo muraayadii way soo bildhim weysay yani in ay haddana bildhim samayso oo haddana korto oo haddana ay ka meerato gabadhi way ka meeri weysaa ilaa ay hadda jirada way haysaa lagu leeyahay gabadha ilaa ay hadda jirada way haysaa ya gabdhaha marka waxaan u soo noqonayaa oo walaalaha intuu ilaahay nin badiyay in aad walaasha qalbiga ka dhaawacdid maxaa kuu kase ya maxaa kuu kase in ilo walaasha aad qalbiga ka dhaawacdid maxaa kuu kase inkastoo calafka jiro laakiin waxyaabaha noocaas oo kala maxaa kugu qasbi kara in aad walaashaada guriga kugu soo dhaweysatay asaas qalbadeeda iyo gurigeeda ugu burisatay oo adiga aad farxad gashid maxaad ka hele waxba kama helaysid ya waxa aad ka helaysid maxay tahay marka qasadeeni intaas ay ku ekeed waana qasa aad u xanuun badan waa itaabatay aniga wallahi marka waxaan leeyahay gabar walba oo ka heshay qasadeeda like iyo share iyo subscribe ka iga iloobin waa qasooyin dhaca waaya waa wax dhaca gabdhaha marka waxaan kula talin lahaa yani max walba in aad noqotiin dhexdhexaad in aad isku waalin nimankan oo dhexdhexaad aad noqotid 50-50 aad noqotid 100% siina hadaa tiraada sida abaayo ku dhacday ka filneen abaayo one day ninkaas inuu waxa ku sameeyna kama filneen way is wada siis marka waxaan leeyahay oo wax iga tala ah oo nafteedan ugu horeysa aniga xun nafteedan xuna ugu horeysa ya yani inaan dhexdhexaad wax walba ka dhigano oo wax walba qofkan bili aadamka basharka oo noloshooda wanaagnay inuu anytime isbedeli karo oo waxaan bashar yahay oo bili aadam yahay oo feeling leeyahay oo anytime oo isbedel waxaana la soo ogaaday ninka ragga ah waa any minute ka farxada uu taagan yahay taasa tiisa loo leeyahay tik ayuu siinaa tii hore ma jirtaa lagu leeyahay total tii hore ma jirayso wax hore oo jirto ma jirto wax hore asal soo marin iyo story asal soo marin iyo bas jeclaan jir waxa ma jirayso marka waxa idin ka tagay khayr iyo barako waxyaabo badan idin soo wada insha Allah jacaylka masiirka waxyaabo badan oo kala duwan story qasooyin badan oo adag kala duwan keena doona insha Allah la soco YouTube-kayga subscribe-kayga aad u yaryahay iyo dadka aan hay oo mataqaana i fiirsadeen isma laho waxaan leeyahay marka kor ilaahay idin qaado insha Allah korna ii qaado waan idin sidaas ayaan isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh